albashka waan ku salaamay saaxiib shaqada Uberka marka liisanka qaadato sidee ku helaysaa gaariga ma adaa iibsanaya mise deen ayaa ku bixinaysaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونيجا ولكن بشكا بشيرة إذا له لجوسو دوادو يوتيوب channel كيجا صادق قبرة تمرل بوحنجع لهاي إن عيني سوق بيو وحياة بالشير فايدو له سوا كله هدي أتمرك كوجوري سنصوب وقت فضلا هاي لو إن سبسكرايب بعد كوسيس فيديو لا يجري هذا وما سنت هاي هرت مالمان ما شاء الله هذا يدين كم هدعلنا لايك تينا كومنتيا ده قروح ده بدن عد مقالك عد كسو قرطان سوا كلام مقال كان كن لايك جارسية sidoo kale maanta waxaan ka jawaabaynaa su'aalo ku saabsan dalka Qatar insha Allah haddii aad qabtid su'aal ku saabsan dalka Qatar qaabka lagu imaado fiisooyinka shaqada sida lagu helo insha Allah commentiga ku soo qor baan kaaga soo jawaabi doonaa muuqaalka xiga su'aasha koowaad assalaamu calaykum walaal waad mahadsantahay macluumaadka aadna siisay waxaan ku weydiinayaa horay ayaan ugu shaqeeyay airportka Soomaaliya marka ma laga yaabaa in Qatar airportkeeda shaqo ka heli karo qof ehelkeyga ayaa joogo fiisa booqasho soo kuma tagi karo Qatar waad mahadsantahay horta fiisa booqasho waad ku imaan kartaa sidoo kale haddii ay noqoto inaad airportka ka shaqaysidna waad ka shaqayn kartaa Soomaali badan ay ka shaqayso cid ka celinaysa ma jirto dawlad walba wadan walba ka shaqeeya airportka marka laakiin waxay ku xiran tahay shaqadaada noocay tahay iyo nooca lagu qaato shaqo nooc kasta taal ka soo bilaaw security يعني كوبا أو warehouse كا سيدو كلا كوبا أو ألعاب تدجية أو يعني حمالي هان سيدو كلا وحاجة رقاب وارديال أو يعني جودها أو سود حيران أو ضد كمر كي بودي باسكي تشيكين جرينايا أدوي بدينيهن شقوين إيربوركا مرك شقوين قار شهادة لسكو حرا شقوين قار شهادة لسكو محرا هاد مركز وحكو حيران تهاي باهيدو أي وقبان شقالها لكن واد ببوحين كرتا واد هليسا و nasiibkaaga marka haddii qof hore u soo shaqeyn aad tahay oo experience watana markaad buuxinaysa ayaad ku daraysaa inaad ka soo shaqeysay airportka Soomaaliya khibrad intaas oo sano wixii aad kaloo dheeri ah خلاص laga yaabaa haddii aad nasiib ku leedahay calaf ku leedahay inay ku soo wacaan aad sidaa ku shaqeyso su'aasha kale saaxiib waan ku salaamay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sideen ku heli karaa laysinka darawalnimo waxaan maqlay inuu jiro meel lagu barto gaariyaasha mise qofkii yaqaan gaari wadow lagu dhameystirayo darawalnimadiisa marka sax miya meeshaas horta laysinka marar badan ka hadlay laysinka meel lagu barto ayaa jira haddii aad horay u taqaanay xitaa markaad xaggan imaado half course ama waa imtixaan laga qaadaa haddii aad ku baasto baa lagu siinayaa laysinka dalka Qatar marka laysinka meelo badan oo lagu bartaa jirta hal meel kaliya ma madrasooyin badan iskoolaad badan oo lagu bartaa jira oo gaari wax la kaxeeyaba intaan diyaarad ka ahayn diyaarad meelo goor aydan lagu barto jirta laakiin laysinka markay noqoto iskoolka wax kasta la kaxeeya cagafo tare gaari taraag gaari yariis gaari weyn bas wax walba waa lagu bartaa qof walba iyo choose-kiisa gaarigu xiiseynaya wuu baran karaa sidoo kale iskroga lagu baraa iskrogo by the way marka meeshaas lagu bartaa lacagta bixinaysa macallimiina joogto oo luqado walba badana adi shan luqad amal ay ku baraa kulay Soomaali kuma jirto English Arabi luqadaha Hindida maadaama ay u badan yihiin wadanka luqadooda xitaa waa lagu baraa ay maadaama aysan garanayn Arabi English luqadooda xitaa waa lagu baraa iskoolka yani Soomaali badan anaga maadaama aan ahay Arabi qofkii garanay qofkan garanayn English qofkan garanaynin labadaas ayuu u dhaxeeyaa kulay wuu fahmaa macallimiin badan oo wadamo badan ka imaaday ayaa jooga soo waa kaas su'aasha kale walaal Bashiirow ka waran qofka laysinka taxiga qaadanaya ma waxaa qasaba inuu Carabi si fiican u yaqaano anigu Ingiriis ayaan aqaanaa walaal mise loogu baahan yahay inuu shahaado haysto noocyo doonto ha ahaatee waa su'aasha hore daba socotaa يعني قفك ليسنك قادنا وحبا لوقد أو محرنا إبن شقة حتى ماشان لوقد واحد سكو حرا مجرت ولوجي قف والبعالم قف وبدن وقيم هذا قف والبن لوقد جونا يليه لوقد عن أدية تقارن اليوم بيكون في عند هاي وفرصة ديري أو هي ستدت كلا يعني ما هذا لوقد واحد حرن ما بيجرت بقى ليسنك هدية دربتي واتجسا إنجليش كاسا كبران كرتا even Asian-kii aan saa hore idinkugu sheegay luqadooda kaliya gartaan
maadaama ayaga badan yihiin majoritigooda saas darteeda luuqadooda loo sameeyey oo buug inta loo soo bedelay buug Englishka la bedelay luuqadooda loogu dhigay sidii ay ku bartaan so ayaga intay u badan yihiin laakiin anaga Soomaali maadaama aan ku badnayn xagan laakiin Englishka aan naqaanaa iyo Carabiga wixii kalena dee horta walagu tusaa waxaan baa gaariga la wadaa sidiisa waa calaamadaha lagu wadaa waa gartay sabab calaamadahaas lagu wadaa iyo saa u wadaleed waa practicalka muhiim ah calaamadaha marka lagu baro calaamada noocan waa saas waa baranaysaa kadib practicalkaaga muhiima marka luuqad waxba kaaga xiran ma jirto Englishka haddii aad taqaanaad fahmaysid wax aqrin kartid waa soconaysaa su-aasha kale assalaamu calaykum walaal shirkad ayaa igu tiri fiisa qadar 4k 4000 ayaan kugu geyn marka ku geyno adiga shaqo raadsanaya marka sidee shirkad fiiso shaqo igu keeni kartaa wadanka bilaa employer sponsorship horta way jirtaa marka lagu leeyahay fiisa shaqo dalka qadar ku imaanaysa shirkad ayaa ku soo saarayso mas'uulka ah oo shaqo ayada u shaqeynaysa waa gartay sama markaad imaado shaqada markaad fiisaha aad ku imaado kadib haddaad doonto shaqooyin kale ayaad raadin kartaa marka 4000 lacagtu hadda sheegayna waa macquul had waxay ku xiran tahay suu dadka loo deal gareeyo marka ya 4000 yani macal ticketki waxyaabaas inay gaartaa laga yaabo waxaan way isbedelaa waa wax dawladeed ana exactly horta lacagteeda saxda ma huba laakiin macluumaadkii kale oo dheeriga ah waa idin iftiiman karaa iyo wixii shaki ku jira haddii aad rabtid inaad qadar imaadid oo haddii wax shaki kaa galo mar walbana lacagtaada ha wada bixin haddii aad rabtid inaad imaadid lacag la bixinaa ma jirta ama haddii kale way kala samaysta lacagta meelaa la dhigaa haysaasa sameyneynaa ama qof xaggan kuu jooga qadar oo mas-uul kaaga ah oo kuu soo dhameeya ilaan dadka soo dhameynaya fiisaa xaggan ay joogaan haddii laakiin adiga wadankii jooga lacagtiina xaggan aa usoo dirtid oo waa aaminitaan ma jirta meeshaan mar walba waxaa fiican wax cadeen oo aaminitaan iyadoo ay jirto qofkaa laisku kalsoon yahay laakiin mar walba wax sifo sharciya inaad ku bixiso lacagtaada ayaa wanaagsan si aadan hadhow shalaay iyo waxba aadan u gelin su-aasha kale assalaamu calaykum walaal bashka waan ku salaamay saaxiib shaqada ubarka marka liisanka qaadato sidee ku helaysaa gaadhiga ma adaa iibsanaya mise deen ayaa ku bixinaysaa su-aal muhiima horta markaad leysinka qaadato mar walbana waa in ku dhiirigeliyaa aniga inaad leysinka qaadataan haddii aad qadar imaadid amaba aad joogtidba inaad leysinka qaadatid sababtan waxaa weeye yani fursadihiisa ayaan ogahay marka yarkaa wuxuu yidhi leysinka haddii aad qaadatid ubarka sideed ugu shaqeynaysaa su-aashiisa labo su-aalay iskugu jirtaa su-aashiisa wuxuu yidhi leysinka haddii aan soo qaado ubarka ma anigaa u shaqeynaya mise gaari ayaan soo kiraysanayaa amaba soo deensanaya so horta muhiimaddu waxay tahay su-aashaan kusoo gabagabayn doonaa ubarka laba qaab waa qaab keliga adaa shaqaysanaya haddii aad tahay qof lacag haysta gaariga ayuu soo qaadanayaa gaariga markuu soo qaato ama hadduu soo kiraysan lahaa ama soo iibsan lahaa kadib wixii aad shaqaysa shidaalkaaga marka laga reebay inta kale waxaaba adaa iskale shidaalkaagana waxa ku shubanayso dee kulley meeshan shidaalka wadankan dee waa iska taqaana waa wadan shidaalo waa iska raqiis shidaalka iyo biyahaan cabno waxaa qaalisan biyaha marka muhiimadda waxay tahay ubarka meeshan shirkado badan ayaa jooga xitaa oo diyaar kuula ah inay ku caawiyaan haddii aad leysin haysatid wixii aa haysiday kaa qaadayaan wixii kale bil walba kiskis ayaad iskaga dhiibi kartaa mid kale way jirtaa gaari intaad soo qaadata ayaad bil walba iska geynaysaa hadduu doono sanadu kaaga dhamaana 6 biloodu kaaga dhamaan kara waa qofkaan lacag haynin waa garteen sooma sidoo kale waxaa jirta gaari kale oo asigana raqiis ah daily maanta intaad soo shaqaysid ayana qaybtooda siinaysaa adigana qaybtaada qaadanaysaa waa gartay sooma marka gabaaridana haddu say u cusuban yihiin iyo sanadkooda ay ku xiranta dhib ma laha waxaas haddii aad mar leysin heshid shirkadaad u tagaysaa laazim xoogoo gacanta inaad lacag yar haysatid waa aad leysinka qaadatid adiga opshano badanaa kuu banaan option kasta waa tijaabin kartaa midkii kuu wanaagsan adaa yaqaan haddii aad adiga nin naftiisa u shaqaysana aad rabtid inaad adiga shaksiyaan u shaqaysatid oo wixii ayagana ay kugu leeyihiin aad kistooda iska siisid waa gooni haddii aad dhowr sano ama sanad markaad ku shaqaysatid
ayaga inaad half iyo half saad u kala shaqaysataan wixii ka dambeeya gaariga adiga ayaa la wareegaya keligaaga ayaa shaqaysanaya magaalada waa garteen soo ma marka waa uu fiican yahay welina laysinkana sababta mar walba idinkugu dhiirigelina waxay tahay wuu fudud yahay soomaali waa ogahay dee qofka badanaa dadka ila soo hadlo shahaado ma haysan ay dhaheen luuqadana xoogahoo way nagu yar adagta ay dhaheen even xitaa dadka jaamacadda iyo wax yaqaana xitaa hadday imaadaan intay wax raadinayaan way ku adkaanaysaa laysinka marka waxiyaa lagu qaataa markaad laysinka qaadatid adoona ku shaqaysanayo haddii aad shahaadiyi wax wadatana meelihii shirkadahan waad kusii geysan kartaa labada fursadood buu ku qabanaya laysinka haddii aad shaqo bilowdana inaan mar walbana gaariga qaadanaysaa laysinka waa muhiim haddii family ku imaado amaba aada la joogtidna laysinka waa muhiim inaan gaariga qaadanaysaa meeshan waa wadan weyn haddana wuu kulul yahay wadanka badanaa basaska ama tariinada haddii waad ku xirnaan kartaa laakiin laga yaabaa waqtiga aad u baahanta inaad kasoo daahdid ama haddii markaas waxaad ku qasbanaanaysaa inaad ubar iyo gaari aad qaadato taxi oo lacag ku bixisid lacag badan ay kaa qaataan tagaasida meeshaana tagaasida lacag badan ayay qaataan haddaa maanta taxiga karaysana aad dhahdid $25 maalintii way kaa baxaysaa waa garteen sooma marka waa kaasaa marka insha allah wixii su-aal aad qabtid ku saabsan dalka qatar commentiga kusoo qor insha allah hana iloowina muuqaaladeena inaad like garaysaan commentiga sii share gareeya ya waxaa rabnaa insha allah sanadka intuusan dhammaan 100,000 oo qof inaan xirno youtube-ka insha allah maalmahan anigana aada u jeclaystay marka waxaa idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu peace and love nabadaa ka shaqeynaya